maanta waxaa halkan nooga furmay shir wada tashiya oo ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Jarmalka oo looga hadlayo mashaariicda ay dowladda Jarmalka ka fuli doonaan dalkan Soomaaliya guud ahaan labada sano ee soo socota. shirkan ayaa wuxuu daba socdaa shir dhacay September 2023 oo lagu saxiixday 2 sano oo wada shaqeyna ama taageerida ay mashruucyada ku taageerta dowladda Jarmalka dowladda Soomaaliya gabagabaha waxa la bilaabayaa mashruuc cusub oo marka 2026 ilaa 2027 socon doona. maanta waxay ahay shirku noo ahaa mid farsamo oo technical discussions la galay si fiican inoogu dhacay. waxaa ka soo qayb galay wasaaradaha ay qusaydo ama mashaariicda sida tooska ay u taabanayso. waxaan ka xusi karaa wasaaradda maaliyadda oo iyagu halbowin nooga dhinaca dhaqaalaha, wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka, wasaaradda biyaha iyo tamarta, wasaaradda beeraha, wasaaradda caafimaadka, inta wasaaradda waxbarashada qayb ka ahayd iyadana, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, wasaaradaha hadda ma ka soo qaylay waxay uga soo qayleen hab technical ah iyo waliba hab agaasime guud gaaraya ku soo qayb galeen. xagga Jarmalka waxaa ka yimid wufuud aad caalami ah. waxaa kaloo markaas qayb ka ahaa madaxa horumarinta Jarmalka ee dalka Soomaaliya iyo shaqaale ka yimid Nairobi iyagoo hawshan ka noogu yimid. si fiican ayuu noogu dhacay wada hadalka. bari waxaan rajaynaynaa haddii aan lidmo inta dhiman inoo dhammaystirto oo saxiixa heshiiska labada sano ee soo socotay 2026 iyo 2027 yaa lagu saxiixi doonaa. waxaa saxiixi doona wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane xildhibaan maxamuud sheekh faarax beene. waxaan rajaynaynaa inuu si habsami leh inoogu dhamaado shirka. bari markuu shirka dhamaado waxaan filayaa inuu wasiirku isagana markaa uu siiyo waraysi baaxad leh oo isagana ku cabirayo waxyaabihii meesha ay nooga suurto kale. aad ay u mahadsantiin.